heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug laguna gaaray Jabuuti ayaa waxaa qayb ka ahaa qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen isku darka labada baarlamaan iyo sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka. Qodobkaasina waxa uu ahaa mid si weyn loo wada sugayay, waxa uuna hirgalay 27kii bishii saddexaad ee sanadkan, iyadoona xaflad la iskula daray baarlamaanka lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. Madaxdii goobjoog ahayd ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, waxa uuna si buuxda u soo dhaweeyay qodobkaasi fulintiisa. Mar uu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri: haddaan nahay madaxda reer Galmudug runtii waxaan maraynaa maanta heer fiican oo aan baarlamaankii mideynay. waxaan noo dhiman inaan wasiiradii mideyno, waxaan noo dhiman inaan ciidamadii mideyno, waxaan noo dhiman inaan gabdhihii mideyno, waxaan noo dhiman inaan dhalinyaradii mideyno, waxaan noo dhiman inaan waxyaabo badan mideyntooda aan samayno. runtii shaqadu shaqo fudud ma aha, laakiin mar walba waxay u baahan tahay isku tanaasul iyo iskacan qabsi. afka iyo waxa laga hadlay xildhibaanada dhexdooda iyo waxaas iyo xildhibaanadeen hadda Galmudug waa isku cusub yihiin. waxaan rajaynaynaa inay si fiican isku fahmaan, walaalo noqdaan, wada shaqeeyaan. shaqooyin badan noo yaallo, degmooyinkeena consul aan u dhisan lahayn, sharciyada adinka haysto, degmooyinkeena waxaan ka ammaan ka sameyn lahayn, sharciyooyinka adinka haysto. waxyaabahaas oo dhan waxaa la rabaa inaan noo sameysaan haddii la yiraahdo, oo si dhab ah maaragtay noogu habeysaan, si dhaban aan nooga shaqeysaan. runtii dib u socod macne ma keenayo. marka runtii waxaan jeclaan lahaa in khilaafkaas sidii loogu wantoobi karo loogu wantoobo. hadalku waa badiyey, dadkana waa daalayeen, kowda habeenimay ku dhowdahay. hal iska dulqaato, hal raalli ahaado. waa la wada faraxsanaa, waa la wada baashaalayay. waa mahadsantihiin dhammaantiin, dhalinyaro iyo odayaal iyo gabdho iyo wiilal iyo intiinaba maaragtay madaxba iyo fanaaniin iyo wariyaalba intiina u dulqaata halkaa waa idinka mahad celinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaba intaasi kadib bishii afaraad aynu ka soo gudubnay isla sanadkan gabagabadeedii ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, isagoona waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiiskaasi uu hambalyeeyay. sida la socotaan laga bilaabo bishii December sanadkii 2017 waxa socday maaragtay fulinta heshiiskii Djibouti ee ku wada gaarnay madaxda dowladda goboleedka Galmudug iyo kuwa Alsoon. runtii heshiiskaas oo ahaa guul weyn oo u soo hoyatay ummadda reer Galmudug aad iyo aad u fiicnaa. runtii waxaa jiray habraaci heshiiska Djibouti oo ka koobnaa 14 qodob sidii loo dhaqangelinayo iyo habkii loo maray in dad badan oo reer Galmudug ay cabasho ka muujiyeen, sida aad idaacadaha ka aragteen ayagoo ka hadleen odayaasha dhaqanka ee magaalooyinka Cadaado, Kalkacyo, Caabudwaaq, Ceeldheer, Balanballe iyo Xeraale, iyagoo ka cabanaya ama sheegayay inaysan maaragtay aqbalaynin in lagu xadgudbo awood qaybsigii ay ku dhisnayd Galmudug ee hore loogu heshiiyay xilligii dhismaha Galmudug, kaasoo gundhig u ahaa tirada xildhibaanada ee 89 ah muddana inay aqbaleen inaysan cadeeyeen inaysan aqbalaynin tiro ka badan in la sameeyo tirada xildhibaanada oo Galmudug hore ugu dhisnayd. haddaba waxaa sidoo kale cabasho nooga timid dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabweynaha reer Galmudug. waxaa wada hadal u bilowday madaxda Galmudug kuwaasoo kala ahaa madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka. kadib wada hadalladaas waxay madaxdii Galmudug iyo korjoogtadooda isla go'aamiyeen in la sameeyo arrimahan, in dib loogu noqdo heshiiskii Djibouti oo 14 qodob ahaa, asagana lagu dul shaqeeyo, in sida heshiiska dhigaya qodobkiisa afraad in labada baarlamaan la isku daro lana ilaaliyo awood qaybsiga beelaha, taasoo lagu daro karin tiro ka badan 89 mudane. in dhammaan qodobada dhiman ee heshiiska laga shaqo galo marka la dhammaystiro taa kore dastuurka, isku dhafka ciidamada, magacaabidda wasiirada, taliyayaasha ciidamada iyo guddoomiyaha maxkamadda sare.